daawadayaal halkani waa Faras TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu muhiimsan. Qodobada ugu doorka roon ee aan wararka idinku haynana waxaa ka mid ah Mustafa Cagjar oo oohin labada dhafoor qabsaday kuna ooyay saraakiisha ciidanka liyu booliska dowladda deegaanka Soomaalida. Axmaaradii oo af labadii dhawaaqaysa una habar wacanaysa Soomaalida si ay uga difaacaan ciidamada xoogga Tigreega ee ka amar qaata jamhadda mayalka adag ee TPLF oo weeraro culus ku haysa. Fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe sar gambaleelka furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya fiidiyowga like sar share dheh oo la wadaag asxaabtaada wixii tala bixin ahna xagga hoose noogu reeb. kusoo dhawaada qodobadii wararka oo tafatiran. wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwe Yusuf. Mustafa Cagjar ayaa maanta qada sharafeed u sameeyay saraakiisha kusoo hadhay taliska ciidanka liyu booliska wuxuuna ugu calaacalay si oohin iyo beerlaxawsi ah oo xaddiga ka baxsan. isagoo ku calaacalayana wuxuu yidhi ciidanka gadoodsan waxaa kicinaya oo igu diraya waa taliska ciidanka ee hadda jooga, iyaga ayaana ciidanka iga horkeenaya, waxayna rabaan in la idilo oo laba af bay inoogu kala sheekaynayaan. runtii anigu idinma nabci, waxaad tihiin ciidankaygii idifaaci lahaa. anu runtii xilka waan ka tegi ee waxaa la rabaa in bari la iikiin adeegsado oo aad waxyeelo ii geysataan aniga iyo qoyskayga oo aan waxba idinka galabsanin. wixii la idinka xumeeyey haddaan hagaajin ee waxaan idinka codsanayaa inaydan cugdad ii qaadin oo aan bari ka maalin la iikiin adeegsanin inagoon wax cadaawad ah inaga dhaxaynin. Mustafa Cagjar oo khudbad dheer oo la yaab leh u jeediyey saraakiisha ciidanka wuxuu ku barartay in cidda ciidanka ku dhex jirta ay siraha ciidanka gudbiso lana wadaagto dad TPLF u shaqeeya oo aan danta ciidanka rabin. wuxuuna codsaday in saraakiishii uu caydhiyey iyo kuwii uu dhimay iyo kuwa xidhanba in la soo sasabo oo xeryaha ciidanka lagu soo celiyo si aysan intaas ka badan sirta ciidanka u sii gudbinin. wuxuu Mustafa Cagjar canaan aad moodo in laysla ogaa uu canaantay taliyaha ciidanka liyuga Maxamed Xaaji Tuur oo uu ku tilmaamay inuu wax walba isagu ka dambeeyo yahayna ninka isaga iyo ciidanka iska horkeenaya. dhanka kale qaar ka mid ah saraakiisha qada sharafta loo sameeyey ayaaban afkooda gelinin qadadii oo si cad u diiday iyagoo ka shakiyey una arkay in lagu khaldayo oo wax kale ay meesha ku jiraan. ugu dambeyn Mustafa Cagjar ayaa iska oysiiyey oo labada dhafoor qabsaday lana aamusiin kari waayey sida uu sargaal goobjoog ahaa noo soo xaqiijiyey. waxaana afkiisa laga gartay anu bari waan tegi karaa ee inaad idishaan aniga iyo ehelkayga oo la iikiin adeegsado ma doonayo ee inagoo walaalo ah oo isjecel wax dhib ahna isu qabin inaan kala tagno weeye, laakiin ma aha inaan inagoo cugdad iyo colaad isu qabna aan kala tagno. ugu dambeyn hadalkan Mustafa Cagjar uu maanta la hor yimid saraakiisha ciidanka ayaa u ekaa mid dardaaran ah, waxaana wejigiisa ka muuqatay madow iyo cabsi badan iyo murugo laga dheehan karay qaab hadalkiisa. waana fadhigii labaad ee uu sidan u calaacalo tan iyo intuu xilka joogo muddo 3 sano ku dhow. mana ahayn qaab hadalkan cusub mid horay looga bartay oo awal wuxuu u hadli jiray si dhiiran kibir ah oo awood uu isbidayo cay iyo aflagaadana dheer tahay. bal waxaan ogaan doonaa waxaa ku soo kordhay iyo meesha laga haysto. waxgaradka iyo aqoon-yahanka axmaarada ayaa waxay ku doodayaan in dagaal ay TPLF la galaan aysan dani ugu jirin. wargeys ka soo baxa Addis Ababa oo la yidhaahdo Fatih wuxuu boggiisa hore ku daabacay dhaqaalaha uu dagaalkani u baahan yahay iyo sida dowladda dhexe ay gacmaha uga laabatay.
axmaaradu waxay aada uga doodaysaa in abiyi axmed uu jar ka tuurayo iyagoo la fagurayo hadalkii abiyi axmed ee ahaa axmaaradu waa geesiyiin iyagaana ku filan inay dhulkooda difaacdaan. waxayna ku doodayaan oo ay isweydiinayaan in dhalinyaradii axmaarada dabka lagu shubayo islamarkaana uusan dagaalkan mudnayn inay keligood galaan. qayb ka mid ah buuraleyda axmaaradu waxay leeyihiin dagaalka dhaqaalaha lagu bixinayo iyo khasaarihiisa yaa kafaala qaadi doona oo mas-uuliyadiisa loo raacanaya. buuraleyda oo daba socda hadalkii abiyi axmed ee ahaa in 100 bilyan tigraaga lagu bixiyey muddadii dagaalku socday ayaa hadal ka keenaya awoodda dhaqaale ee deegaanka axmaarada. qaar kale waxay ku doodayaan in dagaalka deegaamada kale ay la galaan marba haddii aan la baajin karin. waxayna doodooda u daliishanayaan in maadaama oo ururka TPLF argagixiso looga aqoonsaday dalka, sidaas darteed ay mudan yihiin in si guud loola dagaalamo. isku soo wada duuboo doodahooda ayaa ku soo ururaya ma aha inaan dhalinteena keliya dadka ku shidno, mana aha in deegaankeenu furin dagaal noqdo halka ay deegaamada kale isha inaga daawanayaan. ugu dambeyn waxay aada ugu habarwaqanayaan deegaanka soomaalida inuu garabkooda istaago maadaama oo uu Mustafa Cagjar u ballan qaaday inuu u dirayo 10,000 oo liyu boolis iyo maleesiya Soomaaliyeed isugu jirta oo loogu ururinayo waqti xaadirkan xerada tababarada ee Durqad.